صباحي بولشوي إنكينا بريء بدا صوماليا اندفاع نو ودنكينا صباحي بولشوي إنكينا بريء بدا صوماليا اندفاع نو ودنكينا waxaan soo wariyay marka in dawladda Kenya ay wada hadal hoose la gashay maamulka Jubbaland waa state kamid ah Soomaaliya wuxuuna si toos ah u hoostagaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo labada dal diblomaasiyad u dhaxayso ma ahan in Kenya ay la xaajooto maamul goboleed gaar ah ama maamul goboleedka ay diriska la tahay nidaam ahaan waxay ku ficneed in wixii wada haajooda dalku dawladdu leeyahay madax buu leeyahay ilaa waxay saysto laba state ma ahan waa laba jamhuuriyadood wixii hadal iyo xas loo baahnaana in dawladdii federaalka ahayd laga hadlo oo arimaas laga la xaajoodo anigu ahaan intaas aan ku qiimeyn lahaa maadaama wax la qiimeynayo wax laga hadlayo ay ummadda Soomaaliyeed oo idil ay ka dhaxayaan oo hal qoomiyad gaar aysan lahayn ama hal maamul goboleed aysan lahayn marka wada hadalkaas waxa ku fiican in laga wada hadlo hadii dalal kale lagu qaban lahaa ama gudaha dalka lagu qaban lahaaba waxa matala shacabka madaxda dalka oo hadda talada haysta shacabka matala iyaga laga hadli karaa oo wax walba Soomaaliya arimaheeda quseeya صباحي بولشوي إنكينا بريء بدا صوماليا اندفاع نو بدهينا Soomaalida Kenya ku nool meelo kala duwan ay ganacsi ku leeyihiin magaalooyinka dalkaas goordhawada waxa maqlaayay in xawaalado halkaas ku yaala la xiray iyo waxsaas maqlaayay laakiin kaarin ahaan waxay ku fiican tahay oo ay ku wanaagsan tahay ganacsatada maadaama dalkaas ay ku nooyihiin iyaga xitaa aqbado far badan ay la kulmayaan maadaama dalkooda aysan joogin cid ka hadashaysan lahayn shaqooyinkooda hadii macquul ay tahay oo iska soo tagi karaan oo xiri karaan xitaa in dalkooda hooyo ay maal gashtaan oo meesha ay maal galiyaan wixii dalkooda u baahan ay qabsadaan maadaama meesha dal shisheeye u ahaa hadana xiisad diblomaasiyadeed ay jirto in ay meesha ka soo baxaan oo dalkooda ay maal gashtaan Kenya horta waa dal erudirisnaa marka qiimeysid ama xaalad dhabta ay u jirto u jeedid waxa la isku heesta boqolkiiba boqol waxa iska leh Soomaaliya oo dalalkii caalamka iyo maxkamadii adduunka oo dhan wada aqoonsan in dhulka Soomaaliya leedahay laakiin aan ahaan waxa aaminsanahay Kenya ma ahan wax dhibaatada wada dalal kale arintan shaqo ku leh oo Kenya soo diraya ama Kenya gadaal lagu soo dambanaya in Soomaaliya la doodiyo dhulkeeda lagu doodiyo anigu intaas aan ilaa Kenya jamhuuriyad ahaan waa jamhuuriyad jirta oo geeska Afrika ku yaala anigu waa dal jira 18 gobol jamhuuriyad Soomaaliya oo la yaqaan marka anigu waxaan leeyahay Kenya kama awood anagu nagama awood badna aniga Soomaali ahaan waana ka awood badannahay waana ka taariikh dheernahay Kenya marka dalal kale arintan wadan isleeyahay oo Kenya ku soo gambanayaan Soomaaliya badeeda ay ku doodaysaa horta mar baad ay jirto xiisad diblomaasiyadeed oo labada dawladood u dhaxayso waa lama huraan marka in labada dawladood hadii xiisad u dhaxayso in muwaadiniintii iyo qaab kala duwan xitaa marka eegno muwaadiniinta Kenyaanka ee Muqdisho ku nool wax dhibaato loo geysto ma jirto waxyaabo ay la kulmaan ma jirto laakiin kuwa oo Soomaalida oo Nairobi ama meelaha kale ee Kenya ku nool dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan marka dhibaatada halkay ka socoto waa xiisada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso arintaas in la xaliyo saasay ku dhamaan kartaa